يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. سيدا دريميسي ولا ليال waxay ka warramaysaa khudbadeenu dilka qofka muslimka lagu dilo gardarro. sidaynu uga hadlayno saddex qodob ayaynu midba wax yar ka taaban doonaa. dilkaasi siduu islaamku u xaaraantinimeeyey iyo cuqubada uu leeyahay adduunyo iyo aakhirada, daliilada ku soo arooray qur'aan iyo xadiidba in yaroo ka mida inaynu ka soo qaadanno, iyo qodobka labaad oo ah sababaha keena dadka muslimiinta inay isdilaan, iyo arrinta saddexaad oo sida looga toobad keeno. dilka muslimka qofka muslimkaa la dilo aynu ka hadlaynaa waa iyadoo gardarro lagu dilo. xajmu haadihi alcuquuba, ciqaabtaasi qarada ay leedahay qur-aankaa ilaahay uu ku caddeeyey fii suurati الnisaa. alla wuxuu u ballan qaaday 5 cuqubo oo culculus inuu duldhigayo. ilaa cabdillaahi bnu cabbaas uu yihi aayaadkaasi waxay ka mid ahayn kuwii ugu dambeeye soo degay, sidaa daraaddeed qofkaasi towbadba ma leh. waman yaqtul mu'mina mutacamidan buu lahay, waa qofkii qof mu'mina gardarro u dila, maaha khata. fajazaahu jahannam, abaalkiisu waa naarta jahannamo la ydhaah, khaalidan fiiha, isagoo ku waaraya. waqadiba allaahu calayhi, ilaahay baa u cadhooday. walacanah, nacdashiisiina dusha uga tuuray. waacadda lahu cadaaban cadiima, dab weynna waa wala diyaar. in qof mu'min oo ah shahaadanaya gardarro lagu dilo diimaha samaawiga oo dhan ayaa xaaraantinimeeye, diinteennan oo qura maaha, waa weli awliyada ilaahay ka mid a. ilaahay baa wuxuu ihi fii suurati almaa'ida: min ajli dalika katabna calaa bani israa'iil annahu man qatala nafsan bigayri nafs aw fasaadin fi lard fakaannamaa qatala annaasa jamiica waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiica. qofka qof gardarro ku dilaa wuxuu ka dhigan yahay inuu dadkii oo dhan wada laayay, waayo gidaarka naf keliya ku gudban iyo xurmada ay leedunbay dadkuna leeyihin. hadduu qof qura xalaashada intii kalena uma turin, wuu soo socdaa. qofka qof qura nooleeya, ama cadow ha ka nooleeyo, ha ka badbaadiyo, ama cudur ha ka badbaadiyo, ama gaajo ha ka badbaadiyo, waa isagoo dadkii oo dhan wada badbaadiyo o kale. halkaasuu islaam ka taagan yahay. arrintaasi dembiga iyo culayska ay leedahay daraaddeed, markuu dadku abuuray ilaahay aakhiro isu keeno ee hortiisa taaganyina uu xisaabinayo, waa waxa ugu horreeya la bilaabayo. shayga ugu horreeya ee xuquuqda ay addoomuhu isu haystaan waa dhiig. awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati addimaa. rasuulu llaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahy maalinta qiyaamaha faylka ama melafka loo ugu horreeya la bilaabayaa ee dadka laga xisaabinaya waa kaa. qofka muslimkaa in la dilo gardarro lagu dilaa waxay la mid tahay ama ka daran tahayba muqadasaadka lama taabtaanka ah ee cibaadooyinkeenna aynu ku oganno, hadday tahay wakhti iyo hadday tahay goobba, ayuunbay la mid tahay xurmadoodao meel laga dhacay. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam markuu ummadda islaamka sagootiyayey sanadkii 10aad ee shirweynihii xajka, xajatulwadaac, waxa uu la hadlayay ummadduu baraarujinayo, su-aalayay: ayu yowmikum haada, maanta waa maalin ma, bishu waatee, goobtaynu joognaa ama magaaladu waatee. markaasaa nebigu wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam:
ina dima'akum wa amwaalakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada. dhiiggiinna iyo sharaftiinna iyo xoolihiinna inaad kala boobtaan ama waxyeelaysaan sida idinka xaaraam yihiin waxay la mid tahay uun bishan iyo maalintan iyo xaramkan xurmadooda. saasay saxaabadan u fahmeenoo arrinka noocaasa xaaraantiisa way ka fogaan jireen, ummaddana waa ka wacyigelin jireen. cabdillaahi bnu cumar allaha ka raali noqdo, maalin maalmaha ka mida isagoo ag fadhiya kacbada ayaa saas u eegayaa, wuxuu leeyahy maa acdamak wamaa ashadda xurmatak, aad baad u weynta, xurmadaaduna aad bay u weynta kacbada ilaahay haddaad. wallaahi lalmuslim ashaddu xurmatan mink cinda allah, laakiin qofka mu'minka ah unbaa kaa xurmo weyn. marka in qof la dilo waxaa ka sahlan buu leeyahay kacbadan oo cagaf la mariyo. waxa uu nabigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo saxiixa bukhaari ku sugan, qofku godobta u weyn u xambaaraa inay tahay dhiig muslim u galo. laa yazaalu lmu'minu fii fusxatin min diinih maa lam yusib daman xaraama. qofka muslimka ah xorriyadii iyo waasac iyo nabad buu iska haystaa intaanu faraha la gelin dhiig muslim. meel waliba way u dhaqdhaqaaq, nabadgelyo daraa ku dhici, ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba uu ka gadooboobi. aakhiruu ka warramay rasuulku sala allahu calayhi wasalam, qofkii gardarrada loo dilay, kii gardarrada u dilunbuu halkaa usii fadhiyaa, qiyaamuhu u fadhiyaa, ilaahay agtiisu u joogaa ku sugayaa. ama mag ha la bixiyo ama kafaara gud ha la sameeyo. kafaara gudku xaqii ilaahay buu ahaa, magtuna xaqii qaraabada ahayd. kan dhintay xaqiisii halkaasuu ku qaadanaya qiyaamaha. rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayh wasalam xadiidkii saxiixa, yajii'u lmaqtuulu bilqaatili yowma alqiyaama. maalinta qiyaamaha qofkii gardarro lagu dilay kii dilay buu qabsanayaa, kusoo dhegaya. xataa yudniyahu min alcarsh, ilaahay carshigiisuu kusoo dhaweynaya. markaasuu leeyahy ilaahw kana ay dila, bal wuxuu igu dilay weydii. dhiiggiina waa ka burqanaya, bal meeshaad geynaysa adaa yaqaan. arrinkaa aada buu sii adkeeyey nebigu, waxa uu tilmaamay dilka xaraamta ah ee qofka muslimkee la gelaya inuu la mid yahay gaalnimada. xadiid bukhaari ku sugan weeye, amaan idhaahnee saxiixa bukhaari kuma sugna. nebigu waxa uhi kullu denbin casa allahu an yakfirahu ila rajula yamuutu kaafiran aw yaqtulu mu'mina. dembi walba ilaahay waxaa laga yaabaa inuu dhaafo qofka gaalnimo u dhinta ama ka qof muslima gardarra u dila mooyaane. arrinkaasi halkaasuu gaadhsiisan yahay. islaamku cuqubadaasuu u yeelay, xaaraantinimadiisana adduuniya aakhiraba heerkaasuu gaadhsiiyey. waxaa markaa aynu taaban lahayn asbaabta dadka had iyo jeer ku kaliftaa inay dhiig muslim galaan. sababaha waxaa ka mid a aljahlu bixaqi lmuslim, qofka walaalkiisa ee muslimka ah ee xaqii uu ku lahaa iyo xigtadu u ahaa ee uu garan laayay. waayo qofka muslimkaa xuquuqdu leeyahay way badantahe. waxaa ka mid a xaqulxayaa, inuu noolaado, ilaahii daayey, adigu ha u weydaaran ee kuu diiday dilkiisa. markaa wax kale uma haysid, tudhaale kanena uma haysid haddii aad dilaysada. markaa xorriyaadkii iyo xuquuqdu lahaa kii ugu horreeyaad ka qaadaysa. waxaa kalood garan la-dahay tolkaaga dhabta ah waa kii garab iyo gaashaan ku ahaa, waa adigoo waaxahaagii kolba mid isgoynaya wey. ilaahay baa wuxu uhi innama almu'minuuna ikhwa, waa walaalkaa xaqaagii buu leeyay, wuxuu kugu leeyahay xaqu lkhuwa. nin shaaciraa gabya wuxuu uhi akhaaka fa ina man laa akhan lahu ka saacin ila alhayja bigayri silaaxi. war walaalkaa ilaasha buu, ninka aan walaal lahayn waa waralla dagaal tegaya. macnaa dee ninka dagaal kusii socdaan hubba haysan horay buu ka qabanaya cadow. muslimku markay waaxaha isgooyeen mid walba meeshiisuu ayuu cadowga hubka la dul fadhiyaa. sababaha waxaa ka mid a aljahlu biddiin, qofkoo diinta ka jaahila oo laga yaabo inuu diinba u socdo laakiin dadka muslimkaa laayo jahli daraaddeed. maxay dadka ku leeyihiin khawaarijta nimanka la idhaahdaa? khulafaa uraashidiin bay laayeen iyagoo ilaahay ugu dhowaanaya oo la tanaa diin naga ah. cali ibnu abi aalib bay u dhukuseenoo salaad subax kow lagaga siiyey.
saasay asxaabta u leynayeen mararka qaarkoodna waxay odhanayeen gaalka heshiis baynu la leenaho cashuur baynu ka qaadnaa ha dilina laakiin kan muslimkaa dila waa diintiioo ku qalloocatay waana ka nebigu ummadda kusii abaabulaya kuwa noocaasa inay laayaan ugumuu dul qaadan karaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam bal si adag buu u qaabilaya aljahlu biddiin inuu qofku isagoo diinta ka jaahila dadka muslimiinta laayo laba qisaynu soo qaadan doonaa oo saxiixayn ku sugan mid waxay ku sugan tahay bukhaari iyo muslim waxay tilmaamaysaa waa sababaha waxaa ka mida macnaha diinta ha ka jaahil noqdo laakiin qofki waa cadamu tathabut inaanu qofkii waxba iska hubsanin oo hubsiina la-aanu ku laaya dadka muslimiinta ah nebigu ciidan buu diray calayhi salaatu wasalaam ciidankaa waxaa horkacayo hogaaminayay khaalid ibnu waliid sayfullaahi almasluul waa seef ilaahay oo galka ka baxsan oo cadowga dul taalla ayuu rasuulku sifeeyey sala allahu calayhi wasalam qoladii markii la weeraray waxay isku dayeen inay islaamaan laakiin eraygiibaa ka qalloocday saba'naa 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 bay idhaah waanu ka baxnay diintii waanu ka baxnay ka ridownay ka ridownay oo qofka islaamaabay saabi u yaqaaneen inuu diintii ka baxay khaalid iskama hubsanina kol haddii aanay shahaado iyo islaam iyo waxba afka soo marinin uu ku daldalo waa laayay maxaabiista uu ka qabtay iyadoo maxaabiistii la hayo ayuu mar dambe amar siiyey asxaabtii wuxuu uhi nin walooba maxbuuskaada isa dil cabdillaahi ibnu cumar oo ka fiqi badnaa ayaa wuxuu uhi cid kale anigii cidda iga tala qaadataa toona maxaabiista layn mayno anugu maxbuuskayga dili maayo way sii daayeen markaa ibnu cumar iyo intii dhegaysto halkaa way ku caasiyeen waayo waxyaaba badan baa la isku yeelaa laakiin madaxda wixii macsiyo dembiya lagama yeelo khaalid ibnu waliid markuu warkiisii maqlay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau uhi allaahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid ilaahay ow khaalid ibnu waliid waxa uu sameeyey kuma jiraanu beri baan ka ahay magtiina uu bixiyey marka magtii baa la bixinaya qofka lagu qaldameed qirsanta inaad ku qaldanto ama gafi dusho inaad magtiisa bixisaa saasuu magtii u bixiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam mu odhanin asxaabigan beri baan ka ahay oo dee waa islaam oo walaagii gacaltooyadii baa jirta islaamnimada laakiin asxaabiba ha ahaado qaladkiisii buu ka beri noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam marka arrintaas waxay tilmaamaysaa iskama hubsanin haddee weliba dagaal baa lagu jiraa waana marxaladii ugu xasaasisanaa waxaa keenaya aljahlu biddiin qofkoo isqanciya oo idhaahda kan ashahaadadiisu ashahaado soconaysa maaha ha iskaba ashahaatee dil taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha diinta jahligeeda ay ka mid tahay waxaynu usoo qaadanaynaa qisadii usaamat bnu zayd fii saxiixi muslim ee saxiixa ahayd usaamat bnu zayd waxa waa nin daayar waxaa la odhan jiray xibbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu isaga wuu jeclaa aabihiina wuu jeclaa si aadaba uu jeclaa xokaynihii nebigu ka mid ahaa calayhi salaatu wasalaam laakiin maalintaa way seegtay oo isqancintiisii qallooc bay noqotay si qalloocan buu isu qanciyey qoladii qolo sariyaa buu raacay col xooga ah oo tiro markaas kooban ahayd oo nebigu uu ka hadhay buu hi baxo oo qoladaa la soo dagaalama qoladii markii ay jebiyeen ayaa nin ka midihi wuu cararay isagoo cararaya ayuu ashahaati ku celceliyey markaa waxaa eryanayay nin reer ansaareed iyo usaamat bnu zayd ninkii reer ansaareed uu ka fiqi roonaado uu iska taagay usaamana kawbuu kaga siiyey nebigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam markii warkii la gaadhsiiyey usaama uu tego uu sheegay war miyaad dishay haa waan dilay aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah 3 jeer buu nebigu ku celiyey ma waxaad dishay intuu ashahaati ma waxaad dishay intuu ashahaati ma waxaad dishay intuu ashahaati markaa usaama isqancintii buu sii wado wuxuu ihi ashahaadada hubku ka magan gelaya ka dhammahayn nebigu wuxuu ihi falaa shaqaqta qalba oo maxaad qalbigiisa u jeexi weyday haddaad doonaysa inaad taa ogaato qalbiga maxaad uga eegi weyday haddaanad se qalbi jire ahayn maad ku qanacdida shahaadadiisa usaame aad buu uga murugooda wuxuu ihi maalintaa waxaan jeclaystay inaan markaasun islaami lahaa oo islaamnimaba aanay iga horreyn lahayn waayo islaamnimada wixii ka horreeya qofka laga dhaafaa marka taasina waxay ahayd canaanuu nebigu dusha uga tuuray calayhi salaatu wasalaam jahligiisa inaanu rubin raacinin ahlulcilmigii iyo aqoon-yahankii ka qancin lahaa inaanu ula soo noqonin ansaarigii walaalkii ahaa inaanu la mid noqonin
qalad bah lagu tiliya laakiin waa qalad jahliya oo isqancina asxaabtii halkaasuu la maray rasuulku sala allahu calayhi wasalam uguma cudur daarin oo ma odhan ninkani waa ehelkii iyo xokaynii iyo asxaabtii bal aan yar asturno qaladku waa qalad asxaabiba ha galo waxaa ka mid ah asbaabta alcasabiya qofkoo qabyaalad ku dagaalama dee waana taa aynu arkayna mar walba soo noqnoqonaysa oo ummadda ilaahay wuxuu ka doonayay inay u noolaadaan umamiya laa qabaliya ummadnimo inay u noolaadaan oo nolosha ama wada dhaqanka qolana qabyaalada ka daysa qolana ummadnimada ummadaha had iyo jeer caalamku ummadnimay u noolyihin waa adiga arkaya adduunyadii afka qabsadeen iyagoo gaalo ah ay hogaaminayaan horkacayaan xoog iyo xoolaba ummadda islaamkana waxyaabaha googooyay qabaliya u noolyihin ummadda islaamka ilaahay wuxuu la doonaya inay ummadnimo u noolaadaan wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan waa ummad diin iyo caqiide ku walaala meel kastay joogaan iyo cid kastay yihiinba sidaasay ilaahay agtiisana qiimo ku yeelanayaan ummadahana ay ku badbaadin karaan ay ku horkici karaan qur-aanku ummaddaasuu kusoo celceliyaa fii suurati almu'minuun wa fii suurati alambiyaa وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأمة كلية إله كلية أنا عابدة شقة كلية أنا طالب إله شقة كلية وامحي وعبسي الله إيا عبادة الله إله إنها عابدان هنا كعب صدان شقة إذا أنت الله وإنت ما هكونا إسكيس إساني يستلي يستعي يسباب وأمة كلية إله كلية كتلقاتان إساق كعب صدان إساق عابدان marka hadday ummadnimo u noolaan waa inay qabaliya u noolaadaan dee way isku duulayaan sababaha waxaa ka mid ah taxriishu min alacdaa in gacan shisheeye jirto ama qabiilkaa soo dhex gasho ama koox ama mid kursi doonaya taasina aad bay shisheeye u isticmaalaan wa haadihi fursa saanixa yastafiidu minha alacdaa jaanis ay cadowgu dhaqso uga faa'idaystaan weeye iyaguna abuuraanba ilaahay baa wuxuu uhi kullamaa awqaduu naaran lilxarbi adfa'aha allah mar kastoo cadowgu dab soo shido anaa ka baktiya baa ilaahay uhi muslimka marka dabkaasina wax iska badan weeye sababaha waxaa ka mid a dunuwu lhimma qofka hankiisoo yar oo u ordaya xoogaa maala iyo xoogaa mansaba intaa mashruuc kusoo qaato dadka ku laayo wuu kasii degay nebigu calayhi salaatu wasalaam wallahi inaana faqri idinka cabsanay buui mal faqra akhshaa calaykum inaa ummaddiinani faqri u dhimataan idinka cabsan maayo laakiin waxaan idinka cabsanayaa in adduunyadaa laydiin fidiyo oo isku dishaan oo ku tartantaan marka waa qofkii hanka yaraayo ilaahay ma doonayo aakhire ma doonayo ummad wanaagsan ma doonayo laakiin arrinkiisu wuxuu ku urursan yahay aniga iyo innaga arrimahaas oo dhan waxaa sii raaci kara waxa la yidhaahdo alkibr waalaanaaniya qofkoo isagu ismuujin wada ismuujin waana dadka had iyo jeer keligii taliyayaasha dadka muslimiinta u madaxdii ay muslimiinta u laayaan laakiin taariikhdooda waa maxay cinda allahi wa cinda annaas liiska madoobay galaanay caan ku yihin qarnigii khulafadu markuu dhammaaday casrulkhulafaa dowladdii reer bani umaye iyo dowla alcabaasiya iyo rag baa jiray caan ahaa oo kibirka kusoo caanbaxoo muslimka laynayay waxaa ka mid ahaa xajaad iyo safaax iyo nimankii la odhan jiray xajaaj binu yuusuf 100 kun oo qof buu garbaduub u dilay haddii dil lagu aarsanayo ama cid lagaga cilbaxayo ma baaluka inta sida kale u dilay maxaad u malaynaysa hadduu 100 kun oo qof iyagoo xidhan dilay dowla alumawiya raggii markaa dadka laynayay ka mid ahaayeen waxaa ku xigay dowladdii taariday ee la odhan jiray dowla alcabaasiya iyagana waxa caalanka u xisiday oo asaasay ninkii la odhan jiray safaax waa dhiigyacab bay ka dhigantay eraygu markaa afcareed ahaan la fasiro 38 kun oo qof buu ka dulbooday isaguna uu dilay 4 sano keliya ayaa isaguna uu madax ahaa waxyaabahaasoo dham ismuujin bay ka ahayd waa ninkii adeerkii iyo safaaxaas ayaa wuxuu la odhan jiray cabdullaahi ibnu cali hadda ibnu cabaas waxay ka tirsanayaan nimankaasi laba cabdullaahi ibnu cali waxaa isagu ka tirsanayaaba mid keliya kan kalena labuu ka tirsanayaa ibnu cabaas awsaaci buu u yeedhay maalin maalmaha ka mid ah cabdullaahi ibnu cabaaskaas
macnaha madaxdii ka talinaysay buu ahaa ardu shaam waa cabdillaahi ibnu cali ibnu cabdillaahi ibnu cabbaas wey imaam awsaaci oo ahlu shaam oo dhan faqiihi iyo caalimkiia waxaa ii geeyey macnaha dhiigga muslimka culimadu may fatwoon jirin si dhaqso ah arrinkaasi isagoo caddaado garsoor hortiis ka caddaada mooyaane waxay ku degdegaan mu ahaan jirin ninkaa isagaa ee madaxdii waktigaa talinaysay waxa uhi warorta nimankii aynu sayne ka adkaanaye wax ina yar caaridsan ma lahayaayo ina soo rimanuun ama xataa aanayna ayidsanayn wallaahi cid kale kuma hayna bay dhahan laakiin wadaadka awsaaci baa iska aamusan oo nooca inoo sacabaynaya aan ku jirin bal u yeedha buhi isaga laftiisa u yeedha markaa waxa safaax maaha laakiin safaax buu adeer u yahay imaam awsaaci markii la yidhi waxa kuu yeedhaya ninkii ibnu cali lo odhan jiray oo dee caanku ah inuu kawn kaga siiyo dadka ayaa isagaa ka warramaya wuxuu ihi kafantaydii baan iska sii xidhay dharkiisana waan qaatay laakiin hoostana kafantaydii baan iska gashaday waayo si dhib yar maxkamadba la geyn maayo khaarijiyan buu odhanaya markii aan ninkii hor tegayna 3 su-aalood buu weydiiyey rag baa meeshana seefalla diyaara oo ay jeeshiisi ka mid ah markaa wuxuu uhi waxaan ku weydiiyey 3 cishana wuu sii soomay oo da iska sahay qaada buu ihi haatan waad soconaysaa ilaa nin u tago uu yeedho ka soo noqdaaba waa yaraa dowladdii aanu ridnay ka warran buu ihi reer bani umaya ee dalkiiyo dadka baan uga raaxaynay xadiidkii uu sanadkiisii akhriyay dheeraa saxiixa wuxuu uhi innama alacmaalu binniyaati wa innamaa likulli imriin maa nawa dee ilaahay baa niyada qof walba camalkii waxaa loo xisaabiyey niyadiisa niyadaadu inay xumayd iyo inay wanaagsanayd alla og buur aadaa ka ridanayay mise dadkaa dulmi ka riixaysa xoogaa buu dhulka ku yara gugujiyey bakooradii uu haystayoo haddana wuxu uhi waxaad ka warantaa dhiiggii faraha badnaa aanu daadinay iyo dadka aanu laynay ma xaq buu ahaa mise baatil xadiidkii buu soo akhriyay saxiixa wuxuu uhi qofka muslimka ee sheegayay laa yaxilu damu imri'in muslim ilaa biixdaa 3 النفس بالنفس والثيب الزاني والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة قفك مسلم كان صدح بقى لابد لي كراك حديث كان سنة كيس آخرية قفك إنه قفتله حاصرين لهايا وسنيستو إيانو قالوا أبو دين تسلام كبح الكاسو كتيري أدنا وشي بقولك كوي رجل شيء mar saddexaadkii buu waxaad ka warantaa xoolahaanu ka qaadnay xoolo fara badan ayaanu ka qaadnay ma xalaal been mise xaraam markaa wuxuu ihi hadday iyagu xaaraan ku haysteen adigana xalaal kuma aha oo nin xaaraan haysta ka sii qaadada isna xalaal uma aha hadday xalaal ahaydna xaq sharci unbaad ku qaadi kartaa taasina waxa weeye dee hubin bay u baahantao gar bay u taallaa 3 arrimood markii uu ku celiyey ayaa uu ihi ma inaad tagtaabaa doonaysa ha inaan iska tagaabaan doonayaa buui haddaba sii afuriya buu ihi afurkii wuu ka gabalay ilaa waxaasuu gacanta ku hayaay nin buu ka soo daba dira wuxu uhi kiishkaa lacagtaa u geeyey wuxuu arkay ninkani mowqifka adaga uu marayo imaam awsaaci waxa la yidhi miyaanad khalkhalinoo mee ilaaha raxmaanku maan eegayay buu ihi oan sawiranayaoo inaan ilaahay hor taaganaho ummaddana la xisaabinayo aakhiro muuqaalka aakhirun baan soo yaro qadintay buu taasaa ilaahay igu heliyey markaa kanna haybadiisi baa igu yaraatay taasi waxaynu ku muujinaynaa hadduu macnaha kibri dad wax lagu dilaa wax tarayo raggaasaa soo maray iyo raggaynu arkayna casriganba culimaduna fatwada halkaasay ka taagnaayo saasay isaga adkeynayeen macnaha wuxuu doonaya inuu idhaahdo awsaaci baa xalaaleeyey asbaabta kuwaasaa ka mid ah ilaa 6 arrimood ayaa u sii caansan waxaa markaa furan tawba altawbatu ila allah towbaduna ibnu cabbaas ha sheego qofka dadka laaya inaan laga towbad aqbalayn laakiin jumhuurulmuslimiin culimada muslimiintu waxay u badan yihiin in qofka towbadda laga aqbalayo haddaanu ku gaaloobin oo aanu dhiigga xalaashanin waa laga towbad aqbalayaa oo towbadda albaabkeedu ma xidhna ilaahay baa yidhi yaa ayuha nnaasu tuubuu yaa ayuha nnaasu tuubuu ila allahi jamiican wa tuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun dadkaa shahaadanayo ilaahay u toobad keena marka gaal iyo islaamba towbaddu way u furan tahay wuxuu ka warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam
dee ninkii boqolka dilay markuu ilaahay u toobad keenay toobad dhaba laga toobad aqbalay. toobadda shuruudaheedana waxaa ka mid ah marka uu qofku bani aadam xaq ka galo inuu isu dhiibo ama la qisaaso ama mag laga qaato, dadka uu godobta ka galay iyo dhiigga ka galay inuu isu dhiibo. ilaahay baa wuxu uhi waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi lqatl inahu kaana mansuura. qofka qof laga dilo, qofka gardarro lagu dila buu ilahay ciddii xigtadiisa ahayd awood baan siiyey baa ilahay. awooddaana nabigaa fasirayoo waxa weeyaan qofkii la dilay xigtadiisii in kii dilay isu dhiibo oo idha ama qisaasa ama magiga qaata ama iska kay cafiya. taana saasuu nabigu fasiray calayhi salaatu wasalaam. marka towbadaasi in lagu dadaalo weeye. qofka muslimkaa dhiiggiisana aan laga qayb qaadanin qowl iyo ficil iyo maal iyo fikr midnaba. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.